waxaa maanta magaalada Garowe ee maamulka Puntland laga furay shir looga hadlayay sidii kor loogu qaadi lahaa amniga gobolka Nugaal oo ay ka soo qayb galeen taliyaha qaybta gobolka Nugaal iyo saraakiisha booliska gobolka. Shirkani oo uu shir gudoominayay taliyaha ciidanka booliska Puntland Jarnaal Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waxaa diiradda lagu saaray horumarka amniga gobolka iyo hawlgallada kala duwan ee laga sameeyay xaafadaha caasimadda Garowe, dabargoynta dadka qamriga ka ganacsada, habeen iyo maalin ciidanka booliska ay hortaagan yihiin sidii argagixisada aysan gabaad uga dhigan maamulka Puntland. Taliyaha ciidanka booliska Puntland Jarnaal Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare oo warbixinta amniga gobolka ka dhageystay saraakiisha booliska ayaa ka mahadceliyay shaqada adag ay saraakiishu booliska gobolka Nugaal ka qabteen dhanka amniga isagoona ku dhiirigeliyay howlkarnimada shaqadooda. waxaan noo qabsoomay shir ay qayb ka ahaayeen saraakiisha qaybta booliska gobolka Nugaal oo uu gudoominayay taliyaha ciidanka booliska Puntland Sariir Guuto Cabdi Xasan Xuseen. shirkaas waxaa laga hadlay sidii kor loogu qaadi lahaa amniga gobolka iyo guud ahaanba Puntland iyo diyaargarow ay ku jirto in loo diyaargaroobayo doorashooyinka iska soo dul dhacay oo kala ah doorashooyinka golaha deegaanada doorashooyinka asxaabta badan xisbiyada Puntland oo ka qabsoomay degmada Ayl iyo degmooyin kale Puntland ka mid ah oo la dhawaan in ay insha Allah billahi kariim qabsadaan iyo sidoo kale doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka aqalka shacabka Soomaaliya halkaas dowladda federaalka oo isna dhawaan rajeynaya inuu qabsado. waxaa laga hadlay si loogu diyaargaroobi lahaa amnigaas oo inta ka horeysa loo shaqeyn lahaa si doorashooyinkaas ay uga dhacaan dhul amni ah oo loo diyaariyay oo loogu sii gogol xaaro iyo sidoo kale guud ahaan amniga magaalada caasimadda Garowe iyo nawaaxigeeda iyo Nugaal oo dhan. shirkaas wuxuu soo dhamaaday si fiican oo amaawiir fiican iyo talooyin fiican iyo riboodo fiican loo kala qaatay. waxaan rajaynaynaa Ilaahay idinkiisa in lagu guuleysto waxyaabaha aan rajaynayno inaan u qabanno dalka iyo dadka. waxay boolisku marba u taagan yihiin inay amniga ka shaqeeyaan dalkooda iyo dadkooda ay u shaqeeyaan. waxaan mar walba aan rabnaa inaan dadweynaha aan la kaashano talooyinkayaga iyo tusaalayaasheeda amniga ku saabsan. waxaan dadweynaha ku nool gobolka Nugaal khaasadan kuwa caasimadda aan rabaa inaan u sheego inay soo dhaweeyaan shaqooyinka aan wadno oo amniga ku saabsan oo loogu daleynayo dalka iyo dadka. waxaan rabaa kaloo inaan xasuusiyo xilliga habeenka ah oo dadku ay ciidanka booliska u shaqeynayo dadka cabashooyinka iyo amni darrada ka cabanaya. waxaan rabnaa inaan u sheegno lambarkaas oo lambar heegan ah oo emergency ah. lambarkaas waa 774 all aid weeye. lambarkaas waa 8 ah oo 74 ka ah in la waco waxaa loogu talagalay si degdeg ah inuu uga jawaabo. sidoo kale waxaa la wici karaa haddii kaas la waayo lambar kale oo isaguna ka bilaabma 6 oo inta kale iskaga mid yihiin waa 674 wada 8 isaguna waa lambar kale wada isna emergency ah. lambaradaas waxaa loo diyaariyay in habeenkii inta ay saldhigyada iyo wabiyadu ay ku mashquulsan yihiin shaqada saldhigyada isagu uu heegan ahaado. waa ciidan marna gaafmeer ah marna waxa weeye axyaa emergency u qumaya. sidaa darteed waxaan dadweynaha ugu baaqaynaa waxaa dhacda had iyo jeer dadka waxaad moodaa inaysan qaybtood ilbixin oo aysan aaminsanayn shuruucda iyo qaanuunka dalka u yaal. waxaan arkay had iyo jeer soo noqnoqota dad wax tirsanaya oo la dhibaateeyay ama cabanaya oo aan cabashadoodii geyn saldhigyada iyo booliska soo gaarsiin oo biyada aan geyn aan saraakiisha booliska la wadaagin
hadhow waxa maqlaysaa waxa dhibtaas ugu dhacay 4 bari ka hor 5 bari ka hor waxa eedaas dadweynuhu idinka iska leh cid soo caawin weyday cid soo dacwan weyday cidina ma oga booliska loo waxyoodo boolisku riboodka uu helo buu ka falcelinaya boolisku waxay eedu soo gaaraysaa markii loo dacwoodo oo ka jawaabi waayo Cabdisalaam Wardheere VOS TV Muqdisho.